dowladda Koonfur Afrika ayaa 24 saac ee la soo dhaafay la wareegtay 138,997 ka mid ah talaalka loo yaqaan Pfizer iyo 42,865 oo ah Johnson kuwa oo dhamaantood laga leeyahay dalka Mareykanka. Koonfur Afrika ayaa soo warisay 10,685 oo ka mid ah kiisaska cusub ee COVID-19 waxaana tirada guud ee dadka uu soo ritay ee dalkaasi ku nool ay gaaraysaa 2,624,254 qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. waaxda caafimaadka ayaa sidoo kale sheegtay in tirada dadka uu soo ritay ay korortay 20%. macadka qaranka cudurrada faafa ee dalka South Africa oo loo soo gaabiyo NICD ayaa sheegay in 553 qof oo dhimasho ah la soo wariyay taa oo tirada guud dadka cudurkani u dhintay ka dhigaysa 77,993 qof. halka ugu badan ee kiiskan laga soo wariyay waa halka loogu magacaabo Western Cape oo ah 26%, waxaana ku xiga gobolka KwaZulu-Natal oo ah 22%. maanta oo kaliya waxaa la diiwaan geliyay 10,685 oo ka badan kiisaskii shalay oo gaaraya 7,983, waxaana arrintan ay muujinaysaa in cudurkani uu kor u sii kacayo maalinka ka dambeysa. isbitaalada Koonfur Afrika ayaa u muuqda kuwa aan xamili karin bukaanada faraha badan ee la keenayo iyadoo dadku ay dhagaha ka fureysteen baaqyada caafimaad ee dawladdu jeediso. dhanka kale baaritaan ay sameeyeen saynisyahano ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska iyo jaamacadda Cambridge ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen hoos u dhac weyn oo ku yimaada caqliga iyo garaadka dadka ka caafimaada cudurka safmarka ah ee COVID-19. saynisyahanadan ayaa cilmi baaristan oo ay ku baahiyeen majalada caafimaadka wax ka qortay Lancet waxa ay ku xuseen in tijaabadani ay ku sameeyeen 81,337 qof, dadkaasi oo 12,689 qof oo ka mid ah ay ahaayeen dad la soo xanuunsaday cudurka COVID-19 waliba heerarkiisa kala duwan. tijaabada ayaa ahayd shaqo qabasho looga gol lahaa in lagu ogaado heerka garaadka garashada. natiijada ayaa muujinaysa dadka xanuunka koronaha uu ku dhacay oo ay ku jiraan xitaa dadkii calaamadahoodu fududaayeen in ay qabaan mushkilado ka haysata shaqo qabashada marka loo barbardhigo kuwa uusan fayraskani asiibin. heerka hoos u dhaca garaadka ayaa sida la sheegay ku xirnayd heerka cudurka, waxaana la ogaaday in dadkii u baahday qalabka neefsiga uu hoos u dhacay garaadkooda 7 dhibcood. goor sii horeysay khubaro biology ah oo ka socday isbitaalka jaamacadda Sharti ee ku taala Jarmalka ayaa ogaaday in fayraska corona uu galo maskaxda bani'aadamka isaga oo sii maraya neerfaha uriska, taasi oo dib u geynaysa neerfayaasha waxaana ka dhalanaya madax xanuun, daal iyo dhibaatooyin kale oo maskaxda ku yimaada. Cabdiqaadir Maxamed, warbaahinta qaranka.